السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويكقر حتى ملاها كله لقي هذا جوي قعدت سقرحون يعني مقليسان وقيلي سوحن لو يقانا هل ملو كليا ما هن ملال بدن لكن وهل مل waxaan joognaa badda liido hadii aad dhanka kale intuso waxa jooga dad iyo walaalo saad u jeedaan dadka oo idil waxay u imaadeen si ay u jawi bedeshaan waxa jiro dad wadamada iska imaaday waxa jiro arday waxa jiro yani dad badan oo yani rabaan inay jawi bedeshaan maanta waa 12 Oktoobar waa maalin Soomaaliya ku weyn sababta waxa la rajeynayaa in maanta galabtadan loo xukumo badda dalkeena taas awgeed ayaan anagu aan halkan u nimid badda jawigeedu aad buu yani u sareeyaa dadka oo idilna lababa ay u imaadeen dadna inay refresh ku qaataan iyo fresh dadna waxay u imaadeen yani in maadaama sanado badan la soo jiidaayay dacwada dalka in maanta ay jawigooda ku soo arkaan oo wada qeyraysi kaalay si aan u wada aadno oo aan u aragno badda qaybaheeda kale la soo socdo وين بانتونيا موادين دبار سادو جدان halkaas oo idil waxa taagan doomo dadka laba iyo saddex ay u taagan yihiin sababtu u taagan ma garanaysaa sababta halkan ila taagan yihiin wax kale ma ahan waa si jawi macaan ay wada qaataan saaxiibo iyo walaal dadka qaar waxa arkaysaa kuraas bay fadhiyaan shaabi ku cabaayaan sababtu taqaana يعني halkan aan markaa imaanay magaca ilaahay yani jawiga kale uu ka gudisana ma daashay aniga xataa waa daalay sababtoo galabtoo idin meelahan baa ku lugeynayay marna ordaayay dadku shaabi ku wada cabaayaan shaakada halkan aad ku shaakaysato shaaha halkan aad ku cabto uu ka shaah dadan iyo raaxo macaan yahay kuwa meelaha kale aan ku cabno يا أنت بدنا نحرك مقالة القصة وضمداس يعني ضد شاه كعباية ماشى سويت وعبايان إلا هذا متقنا هذا سبب واحد يعني جوي وكل معايا جوي أنا هذا عن دريمي يا درين كل نوع عن دريمي ولي ما دريمي واحد يرتو صدق درين ولي دريمي درين كاستعاد ومتكن درين كاستعاد ومتكن مجرته وقت أقصد طوبة مقال كان لكن إن بدن بعيد لكن مركل الله يقول جوي ذا ما أنت ويجيت جوي ذا كلام taas awgeed badeena iyo maaragtay khayraadkeena anaga iska leh cid gorgortana kala galayna malaha war dad muufa isku dagaalay waxa rabaa inay bad ka dhacsadaan aqliga ma keenayo dalkeena anaga iska leh uma ogolaanayno ruux ibn aadana inuu qaato balna kiciis si aan meelaha u sii fiirsano anoo yani soconaa hadlayna hadana saaxiibayaal badeena yani gorgortan ma galo badan aad ku weyn u jeedaan war fiiri qofka sideeda bini'aadamka markii dagaal la galo ya waa la daalayaan anaga maanta waa daalanaa nasiinadii ku maqanay laakiin libaaxyada Soomaaliya waxa nasashadooda ka soo kiciyay halkii ay ku soo nasanayeen yaa waa cid kale ma aha waa Kenya wixii ay ayadu heshana way helaysaa sideeda mid ogaada dalka laba lagu ayaa lagu difaacaa midda koobaad waxa lagu difaacaa qori bastoolad ama wixii hub ah oo wadani uu leeyahay midda labaadna waxa weeyaan qofka inuu ku difaaco aqoon iyo cilmi waxa uu leeyahay aqoonta aan leenahay anagu dalkeena ku difaacayna dalkeena waxa kaliya aan u awoodno waa inaan cudud ahaan hadalka aan ka hadalnaa mowqifkeena aan cadeynaa mowqifka dalkeena wuxuu ku jiraa dhiigeen mid ay idin sheegaya dalkeena markii yani uu imaanay Said Maxamed Cabdulla Xasan taariikhdiisa hadaad wada ogtihiin waxa lagu tilmaamay inuu ahaa yani waxa la weydiiyay Said Maxamed Cabdulla Xasan waxa la weydiiyay canshuur inuu wadanka maadaama uu soo galay hadalku yiri mataqaana wuxuu yiri adigu canshuur markaad imaanaysaan dalkan yaadi ka qaada canshuur yaadi ka qaada anima weydiinaysaan markaas waxa dhaheen waa madmullah waa wadaad suufi ah waa suufi waalan macna waa sheekh waalan dhaheen sheekhaas markuu arkay dhacdooyinkaas wuxuu bilaabay inuu dagaal la galo gaalada oo la jihaado wadanka dhiigu u daaday fiiri naag baa garab u noqotay hooya ilinteeda u daadatay askar balixaadkooda ku weysay dad baa u ilmeeyay xaas ayaa garab u noqotay sidee u rabaan inay si dheeleela u qaataan dalkeena iyo badeena ma qaadan karaan mana awoodaan hurdaan ku maqanaay laakiin hurdadu waa ka soo kacnay Afrika hurudnay sax laakiin maanta waxay u egtahay maalintii jaqdada iyo maalintan soo toosna u egtahay maalintii intibaaha aan sameynay u egtahay maanta way ka duwan tahay maalmaha kale way imaan doontaa maalin dhab ah oo dalkeena uu noqon doono sidii waagii hore uu ahaa
aan isla dhageysano muuqaal ka mid ah muuqaalada aan ugu jeclahay si aan idin xusuusiyo waayaha dhabta ah ee dalkeenu leeyahay markaas ayaan isku soo laabanaynaa marbaan afrikaba ahaa quwadda wax muquuniso anigu ka mas-uulahaa wixii tala meel la dhigo marbay madow iyo caddaan markay magacay maqlaan sidaanahay malaaga dila imaamuuskici jireed marbaa ray farxada magaca soomaaliyeed adduunka kuma muloon ku soo qoray meela sare marbaan qaramada midow shiinaha u maslixi jiro masruuf uga qaadi jiray si ay macaluulu dhiman marbaan milatari khatara diyaarado miyagsida madfaca hubka lagu holado maraykan ku caawin jiri maantana waa yaabano meel baan himbiriirsadaa murugo isla gaabiya guuhaadna miciinsadaa muwaadinaday gabay adaa milgahaan lahaa abaalkaan miisi jiray ilaa waayo moogan wali miciin baan doonayaa shacbiyad wax muquuniso mugweyn baan doonayaa muwaadin dhabaa rabaa maantaan ku baahane marquudha ihiliyo samee mawjado samee kacado nomalaasanke difaac markaaniga difaac dad qalkan qaraxigu marsaday magafahaaniga naxay munaafaqayga xore miyaanan helayn hal door malaayiin dhalinyaro intay wadkay mutaan muqdisho iga dhiga markaan aan isla soconno aan wada soconno aan isla soconno sidaas waxaa idin rajeynayaan inaad wax ka barataan in badan khayraadka uu dalkeena leeyahay inahaas ayaan rajeynayaa inaan ku soo afneero waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan ilaa haatan haddaad ka mid ahayn saaxiibada ku xiran channelkeena waxaan ku leeyahay kaalay oo ka mid noqo walaalayaal subscribe star channelkeena qaalada oo idin waxaan rajeynayaa inay markaasi ku xiiso gelin doonaan salaam